قدام بس مدحويني استقالات الصومالي محمد عبد الله فرماجو عسومات من لو ديري محوس كير هذه لو دير عسومات madaxweynaha sagaalaad ee farmaajo hadduu imaan hayo casuumaadiisa waa loo diray farmaajo laakiin waxaan ku cadaynayaa inuu kismaayo imaanayo gormuu imaanaya waqtigaas anigu kuma sheegayo waa shir danaha ummadda Soomaaliyeed looga tashanayo xaq bayna u leeyihiin dadka Soomaaliyeed inay danahooda ka tashadaan ma aha dad la haystayaal ah oo burjuwaasi oo meel ku jira ma aha dadka Soomaaliyeed way isub imaan kalaan maxaan ku raahdaa war maxaa maslaxad iyo dan inoo ah way dhihi karaan marka laakiin shir mucaarad iyo qaab iyo wax lagu dumin lahay ma waa shir wax lagu toosinaayo waxa lagu toosinayaa dawladnimada waxa lagu toosinayaa sharciga waxa lagu toosinayaa wadanka iyo systemka iyo nidaamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxa maanta ka dhax taagan oo qoryaha ay isku guranayaan in nabad loo bedelo oo dalku uusan noqonin meel warlords ah oo adduunku marna Xasan Sheekh waa madaxweynahanagii mana aflagaadeynayna waxna uma dhimayno laakiin madaxweynuhu waqtigiisa waa gabaabsi wax doorasho oo muuqdana ma jiraan awoodda mucaaradka dalka marka carqalad yaan la gelin awoodda mucaaradka sidee noqon kartaa haddii Dani iyo Axmed Madoobe hadda maanta ay la fariistaan oo ay ku soo biiraan ay la arko hore waxa loo arkay mucaaradka iyagoo dhinac aha bal awood ahaan say noqon karaan awood horta awood waxa la yiraahdaa markaad xabado inta qaadato dad la dagaalamayso awood siyaasadeed oo wax lagu toosinayo waa waxaan laakiin awood dad wax loogu dhimahayo oo mushkilad ama aha waa awood siyaasadeed oo ummadda Soomaaliyeed ay rabto inay danteeda ka hadasho maxaa loogu qaban karaa marka Xasan Sheekh awoodda Xasan Sheekh waxba laga qabanayaa iyo wax laga qaban karaa anigu kuma dhahay Xasan Sheekh waa madaxweynaha dalka waqtigiisa hadduu dhamaadana halkaas uu istaagaya dadka Soomaaliyeed ayuu ula mid yahay dawladnimada laakiin madaxweynuhu wuxuu idinku eedeeyay maamulka Jubbaland hadii aad tihiin inaadan doorasho rabin wadanka aanan toosintiisa diyaar u ahayn ma ku muuqataa arimaas maya ima muuqato wadanku wuxuu sax ku yahay marka dadka Soomaaliyeed la sukeeno federaalka maxaa keenay federaalka waxaa keenay dadka Soomaaliyeed maslaxad baa la mooday in federaal laga dhigo marka federaalkaas waxa loo baahan yahay in inta la xaq dhowro qof qolo walba waqtigeeda iyo mandatekeeda la ilaaliyo dawladda Soomaaliyeed ay kor joogto ka noqoto oo aysan noqonin maxaan ku raahdaa mid ayadu sidii mandate-ka kacaanka oo kala tiraahdo iska joog qofka meesha waa maanta wasiir ra'iisul wasaare Xamse deegaankan uu matala wuxuu sheegay in ballan rasmi ah uu la galay madaxweynaha Jubbaland ayna ku ballameen in doorasho dadweyne la aado qof iyo cod arinta ka waran ballantii waa laga baxay oo dhahayo Xamse iyo madaxweynaha Jubbaland midna arintooda kama hadlahayo waxay ku ballameen ayaga yaqaan aniga hawlii taala ugu dambaysa madaxweynaha istaqaalada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo casuumaad ma loo diray muxuu ka yiri hadii loo diray casuumaad madaxweynaha sagaalaad ee farmaajo hadduu imaan hayo casuumaadiisa waa loo diray farmaajo laakiin waxaan ku cadaynayaa inuu kismaayo imaanayo gormuu imaanaya waqtigaas anigu kuma sheegayo